ugu dambeyn waa uu qirtay Mareykanka awoodda dowladda Iran waxaana soo baxaya in weerar lagu qaaday mid kamid ah shabakadihii ugu waaweynaa ee xogta iyo sirdoonka wadanka Mareykanka ee bariga dhexe dowladda Tehran waxay muujinaysaa in ay soo bandhigayso mid kamid ah quwadaheeda ugu waaweyn ee hadda jira waxaana loolan xoogan laga soo sheegayaa gobolka bariga dhexe sidee cutubkan gaarka ah ee Mareykanka ee sirdoonka weerar loogu qaaday maxayse ka qorayaan qaar kamid ah warbaahinta waaweyn ee Washington oo hadda bilaabay inay arrintaasi falanqeeyaan hogaamiyaha hay'adda sirdoonka dhexe ee Mareykanka ee CIA-da loo yaqaanana booqashadii qarsoodiga ahayd uu shalay ku tagay magaalada Moscow ee caasimadda wadanka Ruushku waxa uu kulan halkaasi kula qaatay dhigiisa wadankaasi ujeedadana waxa laga soo saaray war saxaafadeed nuxurkiisa uu dhinacyo badan taabanayo arrintani waxay u muuqataa in Washington ay markan doonayso xal u helidda colaadaha gaamuray ee gobolka bariga dhexe ka haysta iyo qaybo badan Putin waxyaabaha la hordhigay maxaa kamid ah muxuu Putin isaga diiday in uu la kulmo hogaamiyaha sirdoonka CIA-da ee Mareykanka isla madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa qadka taleefanka kula hadlay hogaamiyaha wadanka Syria Ahmed al-Shara waxa la isla soo qaaday badbaadada qaran ee wadanka Syria iyo sida dalka Ruushka uu kaalin uga geysan karo arrimahaasi xilli maalmihii ugu dambeeyay ee aad u sii kacayeen suurtagalnimada weeraro ka dhaca gudaha wadanka Syria oo dhaxmara ciidamada wadanka Turkiga ee gacan saarka la leh Dimashq iyo kuwa adyadka ee gardarrada wada ee nidaamka Israa'iiliyiinta taliska dhexe ee ciidamada difaaca qaran ee wadanka Iran ayaa ku warramay in ay kor u qaadeen weerarada suurtagalka ah in laga yimaado nidaamyada inuu ku yimaado wadankaasi nidaamyada difaaca ee lagu badbaadin karo waxay sidoo kale Iran asil laabtay soo saarista gantaalaha iyo waliba diyaaradaha iswada ujeedadu ay tahay inay ku garaacdo dhinacyada kala duwan ee Washington ay kamid tahay dalka Mareykanka waxay ku dhawaaqeen inaysan xilligan diyaar u ahayn inay qaadaan weerar military oo ka dhana wadanka Iran laakiin dagaalka dhaqaaluhu uu noqon doono midka ugu weyn oo ay doonayaan in nidaamka kacaanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ay ku bedelaan laakiin waxa ay arrintaasi qubarada iska weydiinayaan suurtagalnimada Trump oo dagaalkii militariga ku fashilmay sida kan dhaqaalaha uu ugu guuleysan karo iyadoo qaar kamid ah dawladaha waaweyn ay ku dhawaaqeen in aanay ka laaban doonin waa sida ay yiraahdeen adanahooda yaalla wadanka Iran oo xitaa ay diyaar u yihiin inay difaacaan dalalkaasi waxa kamid ah Shiinaha haddaba markaad si guud u eegto xaaladda ka taagan gobolka bariga dhexe loolanka sii xoogaysanaya iyo waliba kaalmaha soo muuqanaya ee uu ku yeelanayo wadanka Ruushku ma waxay ka dhigan tahay dowladda Washington in ay hadda dabcagaha kula jirto maxaase lagu tilmaami karaa mustaqbalka guusha iyo guuldarrada hogaamiyaha wadanka Mareykanka ee Donald Trump ee dagaalada bariga dhexe uu ka soo xasilin doono markii ugu horeysay aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo wadanka Ruushka ee ku yaala magaalada Moscow ayaa waxa uu tafaasiil ka soo saaray kulankii dhaxmaray agaasimaha hay'adda sirdoonka dhexe ee Mareykanka ee CIA-da iyo waliba hay'adda sirdoonka iyo muqaabaraadka wadankaasi Ruushka kulanka ayaa lagu cabiray isbedelada waaweyn ee ka jira caalamka waxaana booqashadan oo markii hore laga qariyay warbaahinta ay noqotay mid si weyn u soo jeedatay indhaha caalamka dowladda Mareykanku waxay u muuqataa inay ka hortagayso tallaabo ay damacsanaayeen Ruushka iyo madaxweyne Vladimir Putin in ay ka hortagaan waxaana dowladda Washington ay ku dadaalaysaa sidii Ruushka ay u xakameyn lahayd isla markaana aysan qayb uga noqon lahayn tacadiyada ballaaran ee lagu hayo wadanka Iran in ay ka dhidhiyaan dowladdaasi Moscow aqalka talada Ruushka ee taale Kremlinka ayaa sheegay in agaasimaha hay'adda sirdoonka dhexe ee Mareykanka ee CIA-da
uu booqasho ku tagay magaalada Moscow halkaasina uu wada hadal kula yeeshay saraakiil ka tirsan sirdoonka wadankaasi Russia. Kremlinka ayaa cadeeyay in agaasimaha CIA-da uusan kulan la yeelan madaxweyne Vladimir Putin iyadoo kulamadu ay ku koobnaayeen dhinaca sirdoonka ee labada dal oo loo arkay inay muhiim tahay. dhinaca kale wasaaradda amuraha dibadda ee Iran iyo sidoo kale tandhigeeda ah ee Oman ayaa salaasadii ka wada hadlay heshiis qaab dhismeed ah oo lagu sameynayo marinbiyood ku meel gaar ah oo marabaaliri gacanka Hormuz kaasoo loogu talagalay maraakiibta caalamiga ah ee gooshaya halkaasi inay maraan. sida lagu sheegay bayaanka wadajirka ah ee labada dhinac ay ka wada hadleen qorshaha lagu abaaraya baaliri laguna saarayo miinooyinka ku jira marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz kaasoo ay labada dalba xuduud la leeyihiin. marinka Hormuz ayaa ah mid ka mid ah marinbiyoodyada ugu muhiimsan ee caalamka waxaana mara qayb ka mid ah dhoofinta shidaalka iyo gaaska gobolka Qaliishka waxaana lagu tilmaamaa qulqulka tamarta halkaasi maraysa 20% in ay ka tahay guud ahaan caalamka. wadahadallada Iran iyo Oman ayaa ku soo beegmaya xilli ay xaaladda amni ee gacanka Hormuz ay tahay mid xasaasi ah iyadoo dadaalada diblomaasiyadda lagu raadinayo la doonayo in lagu xaqiijiyo mustaqbalka gobolkaasi muhiimka. madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa qadka taleefanka kula hadlay hogaamiyaha wadanka Syria Ahmed al-Shara iyagoo isla soo qaaday xiisadaha ka taagan wadanka Syria xiriirka labada dal iyo waliba sida Moscow ay qayb uga noqon lahayd biritaarka iyo dib u yabyabida dowladda wadankaasi Syria iyo dib u habeynta ciidamadeeda taasoo ay si weyn uga soo horjeedaan nidaamka Israa'iiliyiinta. safargelinta Moscow ay ku yeelanayso arrimaha Dimashq waxay noqonaysaa mid wadna qabad ku noqonaysa nidaamka Israa'iiliyiinta oo ay soo gardaadiyeen dowladaha reer galbeedka ee hadda jooga qaybo ka mid ah bariga dhexe isla markaana ku habsaday dhulka Falastiiniyiintu ay lahaayeen. madaxweyne Vladimir Putin ayaa Arbacadii qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Syria Ahmed al-Shara sida uu sheegay aqalka Kremlinka oo sii daaya warkan isla markaana ay xiganayaan qaybo ka mid ah warbaahinta kala duwan ee Ruushka. wadahadalka ayaa diiradda lagu saaray xiriirka Ruushka iyo Syria xaaladda hadda labada dal iyo fursadaha lagu sii hormarin kara baaliri iskaashiga labadan dhinac ee muhiimka. Kremlinka ayaa bayaanka uu soo saaray waxa uu ku sheegay in labada madaxweyne ay xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay xoojinta wadahadalka siyaasadda iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga, dhaqaalaha, arrimaha bini'aadanimada iyo waliba gaashaandhigga. intii ay labada dhinac ka wada hadlayeen xaaladda gudaha Syria, Putin ayaa mar kale cadeeyay mowqifka Ruushka ee ku aadan midnimada Syria, ilaalinta dhulkeeda iyo waliba madax banaanida qaran ee dalkaasi. waa fariin dadban oo loo diray nidaamka Israel taasoo Ruushka uu kaga dhidhinayo in la farageliyo gudaha wadankaasi. madaxweynaha Ruushka ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la abuuro xaalad lagama maarmaan ah oo ah baalira caadiyeynta xaaladda Syria iyo xoojinta xiriirka kala dhaxeeya Moscow iyo Dimashq. wadahadalladan Syria ayaa ku soo aadaya marxalad adag oo siyaasadeed iyadoo Ruushka uu doonayo in uu ilaaliyo xiriirkiisa gaarka ah uu la leeyahay wadankaasi. taliyaha ciidanka difaaca qaran ee wadanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa ku dhawaaqay wax soo saarka iyo wax ka beddelka nidaamyada difaaca iyo gantaalaha weerarka wadankaasi inay aad u sii kordhinayaan. tani waxa looga soo horjeedaa ayuu yiri sidii dhinacyada naga soo horjeeda ee doonaya inay dagaalka iyo gulufka mar kale ay suuragal ka tahay ay bilaabaan ay ula kulmaan casharo ay weligood ka sheekeeyaan. dhammaan agabyada aan haysano ee difaaca waa kuwa maxalli ah isla markaana ay noqdeen kuwa wadani ah oo wadanka lagu farsameeyo ayuu yiri sargaalkan. xilli Washington ay dagaal dhaqaale ku jirta haddana wadanka Iran waxa ay ku dadaalayaan sidii difaacooda aan loo weeqi lahayn.
taliyaha difaaca cirka ciidanka Iran ayaa sheegay inay socdaan howlgallo lagu soo saarayo laguna bedelayo nidaamyada difaaca cirka iyadoo Tehran ay dadaal ugu jirto xoojinta awoodda difaaca qaran ee wadankaasi. Mas'uulkan ayaa sheegay geedi socodka wax soo saarka iyo wax ka bedelka nidaamyada difaaca uu hadda socda ay yihiin kuwa muhiim ah isagoo hoosta ka xariiqay in tallaabooyinkan ay qayb ka yihiin dadaalada lagu horumarinayo awoodda difaaca cireed ee wadanka Iran uu leeyahay. dhinaca kale Iran waxa ay tilmaantay in haba yaraatee aysan joogin xilliga ay isdhiibi lahayd isla markaana dowladda Washington ay hadda wajahayso mid ka mid ah qatarihii ugu waaweynaa oo dhinaca Iran ka imaanaya sida uu hadalkooda u sheegay. dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in aanay xilligan diyaar u ahayn in weerar iyo tallaabooyin militari ay ka qaadaan wadanka Iran, laakiin ay doonayaan dalkaasi inay ku bedelaan hoggaanka kacaanka Islaamiga dhibaatooyinka dhaqaalaha iyo waliba cunaqabataynta loo dhuujiyay. waxaana hadalkan ka soo baxay Pentagon-ku uu ku soo aadaya xilli dowladda Iran ay ku jirto awood xoog leh iyo dadaal ay doonayso inay wadankeeda ku difaacaan. afhayeenka waaxda dagaalka ee wadanka Mareykanka ayaa oo la yiraahdo Tommy Pickett ayaa sheegay in xaaladda dhaqaale ee Iran ay sii xumaanayso halka ciidamada Iiraaniyiintu ay daaleen, isagoo tilmaamay in Washington ay isku dayayso in ay Tehran ka jarto ilaha dhaqaalaha ee ugu dambeeyay sida uu hadalkiisa u dhigay. warbixin ay baahisay majalada The Axios ayaa lagu sheegay in xogayaha muraha dibadda ee Mareykanka Rubio oo xulufada Washington u xaqiijiyay intii lagu guda jiray xiriiro uu sheegay in Mareykanka uusan qorsheynayn weerar cusub oo ka dhana mustaqbalka dhow oo wadanka Iran lagu qaado. si kastaba haatee Rubio ayaa sheegay in gabi ahaanba meesha laga saarin booyre suurtagalnimada in mustaqbalka la adeegsado awood military sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Mareykanka iyo kale xog ogaala oo arrintaasi si aad uga hadlay. cunaqabataynta ayaa ah awoodda ugu dambeysa oo dowladda Iran ay doonayso baa yiri in meesha looga saaro Washington. Rubio ayaa sheegay in cunaqabataynta cusub ay wasaaradda maaliyadda Mareykanku ay ku dhawaaqeen ay noqon doonto ciwaanka wajiga hadda socda ee dowladda Washington ay doonayso guud ahaanba in ay ku cadaadiso dalkaasi Iran. ugu dambeyntiina dowladda Iran ayaa qaaday tallaabo walaac gelisay Washington kadib markii la weeraray mid ka mid ah goobaha iyo shirkadaha gaarka ah ee ka shaqeeya arrimaha basaasista wadanka Iran iyo waliba in dalkaasi Tehran uu noqday hadda mid awoodiisa ay xooggan tahay. qaar ka mid ah shabakadaha waaweyn ee Mareykanka sida NBC News ayaa arrintan ku tilmaamaya in dowladda Iran ay tahay mid aad u feejigan oo aan lagu degdegi karin. warbaahinta Mareykan ee NBC News ayaa sheegtay in weerarada Iran ay sababeen khasaare aan horey loo arag oo soo gaaray xarumaha sirdoonka iyo qalabka kormeerka ee Mareykanka ee yaala gobolka Bariga Dhexe. sida shabakadu ay sheegeen 4 ilo wareed oo arrintan xog ogaal u ah diyaatirka ama bedelka qalabka la burburiyo ayaa Washington waxa uu kula kacayaa lacag gaaraysa balaayiin dollar. warbixintu waxay intaasi ku dartay in xaaladda iyo baaxadda khasaaruhu uu sababay in Kongareeska Mareykanka uu raadiyo dhaqaale degdeg ah iyadoo sidoo kale hoggaanka sirdoonka uu ka fakarayo in dib loo qalabeeyo shaqaalaha iyo waliba arrimaha muhiimka u ah ee agabka sirdoonka Mareykanka uu ku leeyahay gobolka. gantaalo ku dhacay xarumaha ayaa waxa ay wada maamulaan baa la yiri sirdoonka iyo ciidanka Mareykanka ayaa noqday mid ilaa iyo hadda Washington ay ka keenayso su'aalo aan jawaabaheeda degdeg lagu heli karin. NBC News waxa ay tilmaantay in qaar ka mid ah goobaha la bartilmaameedsaday ay si wada jir ah u maamulayeen hay'adda sirdoonka dhexe ee Mareykan ee CIA iyo ciidamada wadankaasi ee militariga. gantaalaha Iran ayaa ku dhacay raadaaro iyo qalabyo kormeer oo ay si wada jir u adeegsan jireen ciidamada iyo hay'addu. warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in xarun sirdoon oo ku taala gobolka Suleymaniya ee bariga Ciraaq lagu weeraray
marxaladihii ugu horeysay ee dagaalka balse aan la bixin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan khasaaraha ka dhasha weerarka. su-aalo ka saabsan awoodda sirdoonka Mareykanka ayay weerarka Iiraan banaanka keeneen maadaama dowladda Tehran ay hadda awood u leedahay inay wax badan burburiso.